xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed waxa uu idin soo diyaariyay barnaamijkan ku saabsan bidhaaminta waxa loo yaqaan good governance dawlad wanaaga nidaamka bulshada iyo bulshooyinka horumaray nidaam bulsheedka wanaagsan ee horumarka iyo dawlad wanaaga ay ku gaareen bulshooyinkii horumaray waa kuwa sida habboon ee isleeg u helay saddexda tiir ee aas-aaska u ah nidaamka bulshada saddexdaasi oo kala ah dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqanka dhaqaaluhu waa tiirka koowaad ee nolosha la'aantiisna way adag tahay in la noolaado siyaasaddu waa tiirka labaad ee nolosha la'aanteedna nolosha iyo dhaqaaluhuba si habsami leh looma maareyn karo dhaqanku isagu waa tiirka saddexaad ee nolosha aadanaha waana midka isku xira oo haga dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada haddii aad furto oo aad fiiriso cinwaanada wargeysyada kala duwan ee dunida ka soo baxa sida Newsweek, Time, Metro, Daily Nation, Xog Ogaal iyo kuwa badan waxay dhamaantood ka wada hadlayaan saddexdan mawduuc oo kaliya waana saddexda ay ku saleysan tahay nolosha aadanaha tusaale ahaan waxaad arkaysaa wargeys cinwaan ka dhiganaya Kuuriya iyo Mareykanka oo wada saxiixday heshiis ganacsi waa cinwaan ka hadlaya mawduuc ku saabsan dhaqaalaha sidoo kale haddii aad cinwaan kala eegto waxaad la kulmaysaa Hindiya iyo Pakistan oo kala saxiixday heshiis nabadeed waana cinwaan isaguna ka hadlaya mawduuciisa siyaasadda dhanka kale haddii aad mid kala eegto waxaad la kulmi kartaa ama aad arkaysaa cinwaan leh China oo u dabaaldegaya Festival Dragon waana cinwaan ku saleysan dhaqanka dhamaan warbaahintu waxa ay ku wada meereystaan saddexdaasi mawjadood haddaba haddii aan u fiirsano nidaam bulsheedka wanaagsan oo ay haystaan dadweynaha reer Sweden waa mid dhaqaalihiisa siyaasaddiisa iyo dhaqankiisu siman yihiin waana tan u saamaxday inay ka mid noqdaan dawladaha dunida ugu horumarsan bulshada Sweden nidaamkaasi dimuqraadiga ah si sahlan kuma aysan helin oo waxay u soo mareen dhib tiro badan muddo laga joogo 100 sano waxa Sweden ka jiray nidaam dawladeed u ogolaanayay qofka tujaarka ah ee hantida leh in uu ka cod badan yahay qofka saboolka ah waxa dhici jirtay in hal qof oo taajiro uu lahaa in ka badan 100 cod waxa dhacday in xilli kamid ah waqtiyadaas nin Swedish ah oo lahaan jiray beer uu ku dhaqdo doofaar badan uu lahaan jiray in ka badan 100 cod oo doorashada ku bixin jiray kaligiis waxa dhacday in doofaaradii uu cudur ka laayay oo ay ka wada baqtiyeen markii la gaaray xilligii doorashada ayuu isu soo xaadiriyay in uu cod dhiibto ninkii doofaarada badan lahaa oo sabool ah hase yeeshee waxa loo sheegay in maanta uusan lahayn wax ka badan hal cod ninkii odayga ahaa oo markaasi aad uga carooday arintii lagu yiri ayaa ku dhawaaqay oraah caan ka noqday dalka Sweden oo taariikhda gashay wax badan ka bedeshay nidaamkii waqtigaasi jiray wuxuuna yiri yaa cod ka bixin jiray ma aniga mise doofaaradayda intaasi waa horudhac barnaamijkayga balse haddii aan si qoto dheer u qoraansano ujeedada barnaamijkan ee Soomaaliya iyo nidaamka bulshada haddaan loogu in godkala loo gelin haddaan kuma geesi u mudan geerida haddaan gobanimo gutiga loo xidhaa niyaan guralayn midhaas oo go'ay bulshada Soomaaliyeed waa bulsho degan qaaradda Afrika lehna xeebta ugu dheer uguna kheyraadka badan uguna amniga xun qaaradda waa bulsho isku af ah oo ku wada hadla luqadda Soomaaliga maay iyo maxaatire waa bulsho wadaagta diin qura oo atan islaamka waana bulsho markii dhan walba loo eego isku dhaqan ah balse nasiib xumo waa bulsho aan helin in lagu maamulo nidaam bulsheed la mid ah kan hormaray oo ay haystaan wadamada caalamka waana mid maanta sababtay in Soomaaliya lagu daro liiska hoose ee wadamada ugu colaadsan uguna saboolsan caalamka haddaba sababaha dhaliyay in bulshada Soomaaliyeed sida ay noqoto waxa lagu sifeeyaa in ay aas-aas u yihiin saddex qodob qodobka koowaad markii aynu taariikhda dib u eegno ilaa 100 sano ka hor Soomaalidu ma lahayn nidaam bulsho ahaan wadaajiye kheyraadkooda oo dareensiiyo faa'iidada ay leedahay wax wada lahaanshiyaha community ownership waana mid dadka ku beerta wadaniyada runtiina ah tan inta badan dadka Soomaaliyeed ka maqan xiliyadii ka horeeyay bulshada Soomaaliyeed kheyraadka ay si toos ah u manaaficaysan jireen waxay u badnaayeen xoolaha nool geela ariga iyo lo'da xoolahaasi waxay ahaayeen ilaa ay haddana yihiin kuwo si shakhsi ah loo leeyahay taariikhdana lagu ma haayo xoolo la leeyahay waxa iska leh bulshada
community commons never history xoolo aan loo maareen dhul daaqsinkooda oo hadba meeshii qurxoon loogu sheego loo hayaansho sidoo kale waxay ahaayeen xoolo si sahlan ku baabaa xilliyada abaaraha iyo biyayarida jirto maadaama aysan jirin nidaam bulsheed isku duuban oo leh dhaqaale guud oo ay wadaagaan kuna qotaan ceelal biyoodyo ay u baxsadaan xilliyada abaaraha waqtiyadii ka dambeysay xorriyadda oo dawladuhu dalku ka jireen iskaashi la'aanta iyo wax wadaagi la'aanta reer guuraaga Soomaaliyeed way jirtay waana mid keentay in la furfurto qaarkoodna ay dayacmaan ceelasha ay u qodeen dawladihii soo maray Soomaaliya maadaama aysan jirin wax dhaqaale ah iyo fikir ah oo ay ku lahaayeen qodistooda ayna aaminsan yihiin dadka reer guuraaga ah in dawladii aysan jirin oo dawladihii burburay ay lahaayeen ceelashaasi marka waxa cad in xitaa kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada ay haysato waxa la yiraahdo lahaansho la'aan lack of ownership sababta labaad ee ummadda Soomaaliyeed ugu wacan horumar la'aanta amni darida iyo saboolnimada waa sabab ay leeyihiin dawladihii soo maray dalka laga soo bilaabo 1960 ilaa 1990 dawladahaasi ma aysan qaadan nidaam dawladeed bulshada Soomaaliyeed ku maamula habka dawlad wanaaga ee horumarka iyo isku filnaanshiyaha inkastoo ay dawladahaasi kala ahaayeen laba dawladood oo civil ah iyo dawlad xukun military ku dhisneed laakiin saddexduba waxa ay ka wada simnaayeen oo ay adeegsadeen nidaamyo siyaasadeed oo aad uga weyneed dhaqanka iyo dhaqaalaha yar ee uu dalka haystay waqtigaas haba ugu darnaatay tii ugu dambeysay taasoo ahayd mid abuurtay burburka siyaasadeed dhaqan iyo dhaqaale ee ina dhaxalsiiyay dagaalada sokeeye ee ilaa iyo maanta ka socda qaybo kamid ah dalka Soomaaliya Allahu ku gargaar iga nawato kana garasiil biyo gobanimo kana garasiil biyo gobanimo sababta saddexaad ee ummadda Soomaaliyeed ugu wacan amni darida dhaqaale xumida iyo horumar la'aanta waa sabab ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ee magaalo jooga ah kuwaas oo asal ahaan 70% horay u ahaan jiray dad reer guura ah oo xoolo dhaqato ah kana soo hayaamay nolosha miyiga ah sababo aan sida uga fogeen oo ay ugu weyneed horumar la'aanta iyo iskaashi la'aanta ka jirtay miyiga bulshada Soomaaliyeed ee magaalo jooga ah waxa ay ahaayeen kuwii u dhiidhiyay kana faa'iideystay xorriyaddii iyo dawladnimadii aynu qaadanay 60kii qaarkoodna si siman u helay fursado waxbarasho ilaa heer jaamacadeed fursado shaqo maamul ilaa heer ay gacanta ku dhigaan hogaaminta hoggaanka sare ee dawladihii ka jiray dalkeena laga soo bilaabo 60kii ilaa 1990kii nasiib darro bulshada Soomaaliyeed ee magaalo jooga ah waxa ay noqdeen kuwo sidii la filayay aanu ugu faa'iideen dalka iyo dadkaba waxayna inta badan noqdeen kuwa dhaqankoodii hore ee reer guuraaga ah uu ka awood badiyay aqoontii iyo cilmigii ay barteen sidoo kale waxa ay noqdeen kuwa aan ku fikireen in ay horumariyaan ama dakhli wax soo saar ay u sameeyaan wasaaradihii iyo wakaaladihii ay markaas shaqaalaha ka ahaayeen ama mas'uulka ka ahaayeen laakiin waxa inta badan noqdeen kuwa ku mashquulay in ay uga sahlan tahay in mar walba uu sii sahansado wasaarad wakaalad ama jagooyin kale oo dhaqaale ah taas oo uusan xirfadeeda lahayn sidii waagii uu reer guuraaga ahaa uusan ugu fikiri jirin in uu maareysto dhaqaaleysto dhul daaqsimeedka dooxadii uu markaas degan yahay ee uu ugu fikiri jiray inay uga sahlan tahay inuu u sahansado dooxooyin kale oo roobaysan barwaaqana ah welina aan la daaqin wax hawl ahna aysan ka gelin asaga hadaba noloshaasi sahan ku noolka ah waa midda horumar la'aanta dawlad wanaag la'aanta iyo wadanid yarida inoogu wacan dabayaaqadii 80meeyadii bulshada Soomaaliyeed ee magaalo jooga waxa ay casriyeeyeen oo ay hormariyeen nidaamkii sahan ku noolka ahaa waxa ayna sahankoodii gaarsiiyeen inay sahansadaan wadamo ka nolol iyo fursad fiican wadankooda sida wadamada Yurub iyo Ameerika ilaa iyo haddana waxa marqaatimo doonta ah oo aynu kulligeen wada ogsoonahay in Soomaalida qurbo joogta ah intooda badan ay hadba wadan u hayaamaan marka uu sahankoodu u soo sheego in wadankaasi uu uga yara sahlan yahay uguna roon yahay xagga dhaqaalaha kaalmada iyo dhanka kontroolka arrimaha qoyska wadanka uu ku nool yahay waana mid sababtay in markasta ay sii badato arrimaha tahriibka ee ka jira wadankeena taasoo salka ku haysa sahankaasi ka soo bilowday miyiga ee gaarsiismay ilaa iyo waqooyiga Ameerika iyo waqooyiga Yurub Allahu ku gargaar iga nawato
haddaba daawada iyo dhageyste xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed ayaa u istaagay in uu bulshadiisa u iftiimiyo una bayaamiyo oo u horseedo wadada iyo nidaamka ay ku heli karaan nidaam bulsheed oo dhaqaalihiisa dhaqankiisa iyo siyaasadiisa isku dheelitiran yihiin isku sina u wada kobci karaan oo waafaqsan nidaamka dawlad wanaaga good governance ee bulshada caalamku ay wada haysato loona baahan yahay in wadankeena lagu dhaqo barnaamijka waxa horay u duubay injineer Axmed Maxamed Macalin waxaana dib u habeeyay anigoo aan sarkiin Haashin Nuure Dadyo gabigin, gacmaha isla sada